عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن أصحاب تدمان عمران باير كل هالكم عسبين لكن عاوة برامج بأنه إيه ناتي لها إدماء سوشيال ميديا هتات كترتنا وواجب مركي حلي جيدي تماتينات كهذا شيء بلنتين المقال كان يوحن كأرانينا يوحن أبن هايبا أن هذا إسلاك قارن والهرتين المقال كان وضع تعاونيش maxaa kamaalow hooyada maxaa lahaa hooyadii waaye gabarta naagtana la joogtid anana weyn markaas wuxuu dhahay marka videosha waxaan hooyada ka duubtay meesha ma ka bixi kartaa maadaama hooyadii naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin marka muxuu isoo qoray maxaa lahaa ani qofka ana qabo ana aqaano beentan iga jooji beena shigo samxada beema shigoye qof oo ku soo wici karto meeqa qof ku soo qorto ku dhahday naagta waa naqaana ciyaal leedahay marka wuxuu dhahay maxaa laha qofka ku soo diray aabaha ku soo diray waa ugahay hanina ma ku dhalin marka xada hani way dhashay adina wax ma ku ogid had qof barato waay hooyadeena way tahay hooyadii markay tahayna ana og hooyadeena tahay maxaa laha bavisial badan waa haya cadaymo badan marka waa blokeeyay miga telefoon markaas miga qabana block u saare balaayadan iyo waxaan kala ordaa waa arkay laakiin ma jecel inaan mar walba macnaha xaaskay waa maradayda oo kale waa ilmaha hooyadood waa wax walba haday meesha ka dhacaan mar jecel inaan ku degdega ma jecel Cabdisalaan ahaan intii taqaana xaafadana deganay magaalada deganaan macnaha dadka jooga waa la weydii karaa may waa ku ogahay inaad ahayd anigu markii igu ka dambeysay ayadood aad iyo aad qof ka ciyaal jeclaa waa yar yahay dunida si ciyaarkeedu jeclaa maanta waxay maray ciyaal ma dhalin inay dhahdo ma oga macna inay dhaweyso hooyadeed soo wacday telefonkan ma aqaanay tir waa hooyadeed ayada dhashay marka qofkan ficilada oo sameehayo marka aragnay waxa noo cadaatay qofkan qof sixran oo wax uu sameeyahay inay ogeyn muuqaal hooyadeeda inkira tan iyo gabadhaas maskiinta lagu dheelay iyo waxaan beenta iyo caasinimada dadka waalidkiisa uu dhageysan waayay iyo wax walba qof walba runta u sheeg oo u dhibsahayo si dhageysahayn horta gabadhan ehelay leedahay daday leedahay waa la iskala xisaabtama xaqiiqo waa taas la isku daymayo waa wax lagu wada xisaabtami doono ama maanta aad ama bari aad saameynta ay yeelatana asaga mas'uul ka noqohay inka mas'uul ka noqohay asaga ma faham waa gartay waxyaalaha la yaabanahay hadda waxay tahay awluga maanan hadin annaku kulli ninka hadda la haysta meeshu joogaano joognay sax waana ognahay dad badan oo horta YouTube ku jiraan dhaqamadooda wax badan oo YouTube kaad ka daawataan oo aad run u malaysaan ma jirto mar badan baan isku daynay inaan barnaamijyo ka sameeyno la dhaafal dadka beenta ka daaya laakiin anagoo dadka hadana xishmeynayno ka xishoonayna baan sameeynay laakiin hadii si socoto waa lagu khasbayaa inaynu run badan aan halkan ka sheegno aan cidna u joojin waxyaalaha la yaabo waxay tahay Imraan ninkaas laaka wali isku magacaabihiin samigayga waa nin weyn weeyaan in badanna barnaamijyo xaqiiqa ah moogtahay waa dadkan yar dhageysta buu moogta ka mid yahay waxa xaqiiqo soo gudbiyo YouTube-ka talo fiican ayaan dhawuu siiyay oo channel-ka aad ka daawateen uu siinayay marka maxaa isku soo beegay in aabihii Kamaal aabihii uu hadlo arrintaas saas wax ka jirta aw aabihii ma moodi jiro waxa soo leeyahay wax beena markii damaan Kamaal ka maqlaafkiisa soo gala waa aabahay qofka video-ga ka hadlaya xaaska la leeyahay ma hanina ninkii qabayna uu ka hadlayo waxaanu maqalnay caruurtii mid ka mid ah hani ay dhashay hadlayso waxaasoo dhan markaa waxaanu leenahay ma beenba waa wax enjoy laga dhigayaba la odhanayaa وين عقلك بالعادك موقتها وشقية وأي سومالي waxay tiraahdaa midho niman xilin ma qabtaan warunta qofku Soomaalidu waday wax sheegay been badan yihiin laakiin hadii wax sheegan wuxuu baa ka jira aad baan moogtay shaki badan in sumcadii iyo sharaftii reer dhisan iyo ciyaal iyo way gabadha hadii la furo la guursado dhib ma laataas laakiin ninkii lahaa waan qaba gabadha waxa la Cabdisalaan ilmaheedu waa hadlay xaruurteedii baa hadlaysa Kamaal abihiisa hadlay Kamaal baa hadlay
marka waxaasoo dhan ma beebeen leena dadka waaweynay inta meesha soo fadhiisteen maxaa u dhici weyday marka shaki badan baa yaal waxaan islaa kamaal waa laga gardaranya waa lagu yaacayaa laakiin aabihii reerka gabadha hani dhinac waa isku group si walba warkaasi ku baxo صح laakiin waxaynu leenahay wax badan baa meesha ku jiro ka jiro xaqiiqa صح in laga xishoodo ummadana ma ogtahay u baahan sideen ogna kuwa halkan la joogaba inay youtube-ka been dhigaan soo fadhiistaan صح oo maanta laba qof aad arkayso le waanu isjecelnahay laba qof oo aan waxba ka dhaxayn in ma ogtahay noloshii sidaa lagu qofku haddii maalin kuu gasho maalin walba ma ogtahay صح nin Soomaaliya joogo taliyaaba oo kaftan badan baa wuxuu yidhi hal maalin inta faataxa lagu akhrisataa dad wax ku heshay maalin walba hamoodinta inaad qur-aanka iyo faataxada wax ku hadlaysid waa inaad kasii horo socotaa haddii moogta been badan iyo waxyaalo badan iyo dad aad la goysay iyo aad wax badan ku samaysay ay ku hirgashay dee maalin walba hays odhan dumarku ixtiraam bay leeyihiin sida walaasha ixtiraam u leedahay hooyada ixtiraam u leedahay sidoo kale ragguna ixtiraam bay leeyihiin maasha Allah tiktok aan ka wayna qofkana ma ogtahay adaan ku xadgudbaynay gabadha xuquuq waxa la jirto kamaal ku xadgudbayn xaqiiqada iyo wax walba way la saartaa ma ogtahay la dhahaa inoo waad khaldantahay inoo waad saxan tahay marka wixii noo kala cadeeya ma ogtahay kamaal awal xalay hadlay xitaa baraanki ma ahayn buu yiri waxani oo nin ka hadlay buu ka waxaynay marka bal xaqiiqada noo sheega ma faamilkan wada socdaa mise faamilkan wada socdaa inaan dhaqankeena iyo diinteenaba aynu ilaalino horta hal mid ku jirta meesha hal mid ku jirta waxay tahay xaaska Cabdisalaan soo sheegay odaygeeda macnaha ninka wuxuu yiri gabadhan xitaa hooyad baa soo wacday buu yiri way inkirtay ilmaheeda bay inkirtay kulliin marka xaqiiqda wax meesha ku jirta waxay tahay qofkan inuu sirxan yahay iyo inuu caafimaad qabo yaa loo wareersan yahay qof ilmihiis inkiray ma jiro waa ma qof hooyada dhashay intay soo wacday lambarka hooyada maanta ma inkiri karto qof bilaadan hooyada lambarkiisa inkiray ma la faham waa dil ilaa waxan brank way tahay waan qaadan lahayn laakiin brank ma noqon karto hooyada lambarkeeda diida ilmahaygaan aan sheeganaynin brank wax ma noqon karto arintan xaqiiq u baahan tahay marka awal waxaan islayn moogta gabadha waa laga gardaran yahay waa la dulmiyey ha loo hiiliyo way ciidamo soo haday habeenkii dhow way hadashay oo waxay tiilaa maxkamad baan la tiigsanayaa ismaanaan lahayn wax dambaan ka soo hadlaya arrintaasi markaas ku xidhmaysaa islahay laakiin caawan waxaan aragnay dee ninkii sheeganayay inuu qabay shanta caruurta u dhashay iyo gabadhay dhashay oo hadlaysa curadeeda weliba curadeeda wey dee waxa soo socda wax kasii faal xun laakiin soo socda ani ahaan cimraan ahaan waxaan dhihi lahaa walaalkay Kamaalow arrintan family problem ay ku sii socotaa family problem kan hadduu si bilaad falxuma ka soo baxayso marba haddii ay soo baxday marwin inay xaas tahay oo ilmo leedahay oo zawj ay leedahay arrinta in meesha lagu soo gabagabeeyo raw ilaahay ka dhigay waxaan ku dhihi lahaa walaalkayow arrintan soo gabagabeey family issue iyo arrintan waxa way inaad soo gabagabeyso ay ku xiran tahay in la sii wadboodo wax macnay ku yeelanaysa ma laha caafimaadkaaga uma fiicno magacaaga uma fiicno familka uma fiicno magacaaga waxana weyn xaqiiqada la ogaado haddii xitaa ay kugu dhacday ninka ragga way ku dhacdaa marka hore wax u dhaca oo marka hore waxaas ay kugu dhacay waa inaad ogaato wax baadha haddii laga khaldan yahay oo ku garab taaganahay haddaad khaldan tahayna dee waan ku qabanaynaa oo runtaa ma ogtahay laysu sheegayaa nin walba meesha soo fadhiisto oo yidhi gabadhaasi caadi maaha waa la sirxay aabbaha baa hadlay adigii baa soo hadlay dee nolosheenii aynan ka dhigin wax ma ogta khiyaaniya runta ha laysu sheego adna yaa lagugu xadgudbin adna dadka ha ku xadgudbin oo noloshii waxyaalihii hore baraankiyadaas samayn jirteen yaan laga dhigin oo nolol rasmiya xidhiir rasmiya dadka sharaftoodana ha la ilaaliyo dad bay ka dhalatay dad baad ka dhalatay ninka soo tabtay wuxuu yidhi arrintan waxay tegaysaa family because arrintan in la isku imaado wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay dhibka ka imaada meeshaas inuu Kamaal mas'uul ka yahay marka maxaa dhibku keenaa walaalkay qaaliyow arrintan haddii ay jirto oo marwe ay tahay xaaskan inaad meesha ku soo xirto haddana gabadhu waxay ka dhaweysay waxay leedahay Kamaal brank wuxuu soo saaray block marka arrintaas waa arrin fool xun ani ahaan walaal ahaan waxaan kula talinayaa arrintan family issue haddii in la soo dhameeyo ee si ballaaranin gabadhan haddii marwe tahay marwada loo daayo aydan hadduu qalad ugu dhaco qof bilaadanku qaldami karaa haddii oo dareen uu qaaday jacayl oo adiga ay ku qaaday waxaan dhihi karnaa waa wax jiro laakiin haddii uu jacayl jirin oo saan ay ku socoto arrinta jacayl ma jiro meesha hadda saa arkayno oo qof maanta waan ku jecelahay qof dhahay ma laha qof jacayl soo bandhigay ma leh
ma fahantay marka arrin ahaan ani Cimraan ahaan waxaan kula talinayaa walaalkay arrinta inay family issue ku dhamaato si qar qabtan ay ku dhamaato gabadhan iyo family-keeda in la isku toosiyo haddii ay jirto arrintan ay sax tahay in la isku toosiyo aan jeclaan lahaa intaasaan ka maxaa la dhahay kaga baxaya sidoo kale waa dhamaatay hadal saasaan leenahay kole waad dhegaysateen oo social media dhoodhihan bay ku jirtaan oo maaha dee wax qof keliya moogtay wadwado wax qof anaan ku ataagan Cimraan ay moogtay soo dhigeen oo nin weyn wax ku tuhmay wax badan sax oo kale isku magaalada kale degan yihiin oo nin weyn soo oran karo maanta been buu sheegaya moogtay maaha laakiin media oo soo wareysay 40 daqiiqo wareysi 40 daqiiqo marka ala kulli xaal xaqiiqo